shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay niman shalay siyaasiyiin isku sheegaya oo ka hadlay shalay Muqdisho sidan ka warqabana u tagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxayna ka hadlayeen ciidanka dawladda Soomaaliyeed u soo dirtay Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan caasimadiisa Beledweyne waa nasiib darro ah in tiraahdo dadaan matala ama aan ka soo jeedaa ama masiirkiisa aan ku hadla haddana dantaada oon kaliya aad ku beeskareyso ummadii dhameedo waa matala laheedo waa ka soo jeedaa adleed in dantaada kaliya aad masiirkooda ku beeskareysaa nasiib darro ah nimankaas horta marka hore waxay yiraahdeen reer Hiiraan nahay waa qabiil kamida qabiilada Hiiraan dega waxay ka soo jeedaan qabiilka la yiraaho xawaadle reer Hiiraan waayahay qabiilaadka Hiiraan dega waayahay qolada ugu badan oo hogaamida waayahay laakiin reer Hiiraan oo dhan maaha Hiiraan xawaadle ma jiriye Hiiraan xawaadle u badan yahay Soomaali u degtaa jira xawaadle wax siyaasadeed waa tabakariya laakiin wax siyaasadeed ay tabanayaan maxay yihiin waay yaa lumiyay waay qumayada nijaasada afkay ku cuntay ku haybinayo uri kuwii shalay ka lumiyay talaxumadooda ku lumiyay qaab daradooda ku lumiyay muwaafaqo xumadooda ku lumiyay inay maanta haddana uga sii daraan ay cadawgiyo dilayaan mugii dawladii Soomaaliyeed ay ka badbaadi lahayd ay yiraahiin dawladdu wax kale ka shaqeynaysaa cadawgii dadka ay ka badbaadimay aaday nasiib darro u tahay nimanka meesha ka hadlay horta waa kuwama waa kuwii 8 sano la soo dhaafay xawaadle matalayo madaxdu u ahay xawaadle waa yaqaanaa hadday wax u galeen ay deegaankan gobolka Hiiraan ay ka soo jeedaan wax u galeen ay qabiilka xawaadle ka soo jeedaan ay wax u galeen ay masiirkooda mugay qaateen ay matalaadooda qaateen kadib ku soo noqdeen iyo hadda masiirkii mugow ka dhamaado waqtigoodii dhamaaday haddana sidii qaab darrada ah ay masiirka xawaadle ku heli jireen oo dabandaabyada ahayd oo yacni aheeday dadan xawaadle u dhalanu inuu meelan xawaadle uusan joogin ama dadkiisu ku badnayn lagu doorto hadday hadda raadinayaan iyo hadday masiirka xawaadle mugay qaateen si kastaba ha ku helaane ay xawaadle kula soo noqdeen ay xawaadle ugu shaqeeyeen ay xawaadle horumarkiisa uga shaqeeyeen ay amnigiisa uga shaqeeyeen ay dawladda Soomaaliyeed ay xawaadle ku matalayeen waxay xawaadle xaq ugu lahay ay ka keeneen xawaadle wuxuu uga gal daran ay ka qabteen wixii xawaadle looga gal daran ay ka doodi jireen iyo hadday darahooda qaaska ka shaqaysan jireenba xawaadle waa yaqaanaa xawaadlow yaa maalin bashaati leedii soo gashan xawaadlow yaa nin walba maalin idugu owrkacsan oo asugu dangaara leh 4 sano la soo dhaafay nimankaas xawaadle madax u ahaayeen iyo 4 sano ka horeysay ayagu isma salaamaan hadda shalay muga shirka jaraa'id isla qabanayeen shirka jaraa'id laba loo kala qabtay isku dhaceen isku feerayeen awal isma salaami jirin 4 sano la soo dhaafay 4 sano ka horeeyay isma salaami jirin niman mucaarada ama muxaafada ay la kala jireen waa la yaabanahay qaarkood xilka mugii laga qaado dawladda Soomaaliyeed waa caayaan xilka mugay hayaana
dadka kaloo Soomaaliyeed oo dawladda illa leh ay ilhaaneystaan waxay rabaan ku sameeyaan ama amni ha ka shaqeeyaan ama wasiirnimo ha ka shaqeeyaan waxay ku dhaqmaan waxa taliyaasha Soomaaliyeed ku dhaqmin ama wasiirada Soomaaliyeed ku dhaqmin ay dadka Soomaaliyeed ku dhaqmaan muqii madaxtinimada loo dhiibo war madaxaad tihiin adinkii isma rabtiin isku qabiilaad tihiin qabiilaad isla matashiin adinkii isma rabtiin oo qod isku lama socotiin xumaata bis inaad ka midowdiin oo dhibaatada bis aad ka midowdiin oo wax horumar aanad u midoobinaha oo wax amni aanad u midoobinaha oo wax talaaho qabiil aanad u midoobinaha aaday nasiib darro u tahay waa wax laga xishooday ka xishoodaan idile walaalaha tiilo isku cidaan nahay tale iga tahay talo sida siyaasadu saas maahan Soomaalida saas lagu macaamil karo dadkiina saas lagu hormarin karo war aduku ma shalaad waa leedeen masaadad waa la tiin war shalay aduku waasida la diray maaho dad xawaaluhu dhaqan u leh duubab soo jireenaho taariikh iyo boqortooyana wale aniga weligay taariikhdana kuma maqal aniguna intaan jiro ilmamaahiya ma arkin qof xawaalaah oo ugaas xawaala caynaysa oo miidiyaha ka caynaysa ama iyo u tagto la fariisata caynaysa oo la diriraysa aniga 3 qofoodaan ka arka oo labana nimanka shalay shir ay ku jirtay miduna islaan reer Hargeysa ay tahay 3 qofoodaan ka arkay walax ugaas xawaala cayna xawaalu aad ugaas ku jeceliya ugaaska inuu sharaf u leeyahay boqortooyo soo jireyna halaynahay dadkii shalay caynayo miidiyaha ka caynay inuu maanta haddana xawaala ka hadlo aaday nasiib darowta dadkii 8 sano ama 9 sano madax u soo hay xawaale ama 10 sano oon maalin xawaalo ku soo noqon oon maalin ayagu isi salaamayno haddana xawaala ka tashan inay maanta magac xawaala ka hadlaan ama magac hiiraan ku maxabsadaan aaday nasiib darro u tahay nimayo xishoomay diina xishooda beenlow haddaa tahay xusiistaadu ha badnaataa liin mugaad madax tihiin xaquuqda xawaala kama hadashiin dhibka xawaala kama hadashiin dhibka hiiraan kama hadashiin muga xilku idiga dhamaado ama xilka la idiga qaado ama waqtigiinu dhamaado maxaad xumaatu ugu midowdiino xawaala xaqan ka maqnay waa ka maqan yahay u tiraahiino midka ka maqan sidii loo heli lahay raadkiisa u duugtiin midka ka maqan raadkiisa u duugtiin adkoo danihiina siyaasadeed ku dabaqa war ilaahay ka cabsada war dhibaatada aakhira la idin weydiin doonaa dhibaatada xawaala ka dhaafa war dalka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dhibaatada ka dhaafa ciidankii xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidankii booliska Soomaaliyeed oo anaga cadawgaas u codsanay oo taliyihii qaybta 7 dawladdu u soo dirtay beledweyne ayna howlgalkaas hogaamiyo dawladdu beledweyne ugu soo dirtay oo ciidankaas kaliya la sugayay inuu ka daba yimaado midkii tajooyi asigaba oo cadawgu u hogaamiyo howlgal la galo ayay waxay leeyihiin doorasho lagu boobe beledweynaha laga soo celiyo war kuwii hebel iyo nimanka shalay shiray waa is yaqaaniin lacagta soo diraayo tiknikada dawladii maxamed siyaad barre kadib aan la soo bixino qabiilaad ku leeyahay guryaha ku jirtay kuwii lacagta habeen hore u soo dirayo lagu sameeyo ilmaha mooriyanta oo ay beledkan hore gadaal u dudayeen maahan oo cali guudlaaw meeshaan imaamaha ay lahaayeen maahan oo madaxweynaha Hirshabeelle meeshaan imaamaha kuwii lahay soo maahan soo kuwii lacagtaa soo diray adinka maahidiin soo kuwii doorashada beledweyne u diiday adinka maahidiin Soomaali ugu tala gashay 25 kursi oo beledweyne Soomaali ugu tala gashay oo Soomaalida hiiraan ka soo jeeda leedahay qof walaal Soomaalida hiiraan ka soo jeeda uu midla joogta war ilaahay ma ka cabsatiin war ma xishootiin war ma dadkiina dhibaatada ka dhaaftiin
wadadkiina iyo deegaankiina waxaa ka jira maad timaadiin maad ka run sheegtiin maad dantiisa guud ka shaqaysiin kadib aad danihiinna gaarkaa ka dhexelaysiin war dadka maad adinku qabaanidii ah dadka maad adinka xoog ku haysatiin dadkiinii haddii cadow dilaa in loo soo gurmado dowladdu soo gurmato waa ka qaylinaysiin doorasho in deegaankiinii lagu qabto oo dadkiinu hadday dhaqaale ka heli lahaayeen iyo hadday sharaf ka heli lahaayeenba ay ka helaan waa ka soo horjeediin oo qabiilkiina aad qori u dhiibaysiin war waxaad sheegaysiin wax dadku ka xishoodo waay wax sharaf darro ah waay xishoodaan idin leeyahay aniga intaas idiin dhaafi maaha laakiin waxaad ku dhaqmaysiin isku cid kuma noqon karno isku siyaasad kuma noqon karno isku dowlad kuma noqon karno ninba maalin cidda kuma mateli karo waxaad rabtiin mugad cidda adinku matashiin in laydila tashado talada laydiga dambead rabtiin adinkoo kuma soo noqotiin waad madax u noqotiin annagaan mugaanan madax ahayna nabadoonka ka ahoo ka shaqayna danahooda oo odayaasha la shaqayna mugaan madax u nahana dhex joogno dhib iyo dheefa la qaybsanna haddaan mugaan waa matalaadda aan nasiib u yeelanay in cidda matelno xamar ha isku teginay xamar waxa xun ha ka falkina xamar cidda aan lagama matelo dowladda Soomaaliyeed oo federaalka ahaan shirka uga nahay Hirshabeelle la yiraa gobolka Hiiraan la yiraa Hirshabeelle cidda aan ku matelo ogaada adigu kuma matashiin حوالنا أنا مدح وهي أديكم ماهدين وقتيني واسوقاتين هذا كديم وحي إلى هيدي على الفاضي اللي دوتين والرباية ولا على أنها أنكل حشون دات كي يديان كالا قد حياة أنكل حشون وايد حشون هنا هلا حشونا دات كيني يديان كينا لك حشونا هذه كي تزور كينو قبل حربا waxaan anoo fursadda uga faa'iideysana baaq u diri rabaa ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliyeed ee doorashada Soomaaliya madaxda ka ah marka hore waxaan rabaa inaan meesha media salaan u marsiyaan rabaa 114 salaan ah oo sharaf leh oo karaamad leh inaan media u marsiyaan rabaa kadib waxaan rabaa inaan xodogaal ka dhigo ra'iisul wasaarow doorashada Soomaaliya madax ka tahay dadka Soomaaliyana madaxad u tahay nin dalle dantiisa la leexan nima dadka metelin oo asagu mucaarado banaanka jooga adiga madaxa wuxuu ku sheegana ku dhaqmin shalay in lagu yimi waa la socdaa waxa lagu sheegayna waa la socdaa حتى إلى يكون موافقه ولا صعدا رئيس الوزراء ماشان أنا قاعد كمل حي واحد كجر اللي ويدي ماشان هو القل كذا تليه غيبته من الترقة تضبي لواتنات غيبته هي سوي لجوكته أيام لو صدري هو القل كي عيدا كي عدو جيب قيل يسكون في ريو كلا الناس عيدا كسيدا سالو سكر لي doorashada nimanka shalay ku yimid inay beledweyne doorasho ka dhacdo midii Soomaali ku heshiiday ka dhacdo nimanka shalay ku yimid diiday oo kuwa shalay ku yimid doorashada beledweyne ayaga caqabad ku ah inay qabiilkooda ka hor wareejiyaan hal sano hortaageen madaxweynaha Hirshabeelle shalan ayaga madaxweynaha Hirshabeelle ahay xisaab siyaasadeed hadii xawaalada tabaana waa loo ogol yahay looma diidana inay hor fadhiistaan madaxweynaha Hirshabeelle kala mucaamilaan ay dawladda Soomaaliyeed hor fadhiistaan ay kala mucaamilaan ay waxay xaq u yeeshaan helaan ay haday waayaan kadib xoogooda la soo baxaana laga ogol yahay laakiin marhaba la imaamaha waxaas yeel marhaba meel laga maray lama yaqaan ku imaamaha imaamahaysid wala xayga maqan meel laga maray lama yaqaan si loola mucaamilaan lama yaqaan umadaas muslimin gaalana waa ogtahay walaalow gacaliya marka xod ogaalan ka dhigayna xod ogaal noqo madaxweynaha Hirshabeelle warso anigoo ku xogeykiiyay warso saraakiisha meesha joogtay warso xisaabta ina saas ku dartiin waa idiga rabaa
inaad adiga ra-iisul wasaarahu tallaabtaad qaadaydo tallaabad ka fikirtay ood xaqiijida ay noqotona waa rabaa hebelaa cub yidhiye adigu cirdhana dowladnimo maaha hebelaa cub yidhi ee adigu cirdheh dowladnimo maaha waxaa la rabaa adduunkani kadu necab tahay wax wanaagsan haddou ka shaqaynaa in lagala shaqeeyo ama looga mahad celiyo oo shirka ku tihiin ra-iisul wasaarehu madaxaa looga tahay amarkaaga waa qaadanaynaa doorashadaad madax ka tahay xukuumaddii soomaaliyeed aad madax ka tahay doorashada soomaaliyeed aad madax ka tahay laakiin annaga cadabaa la qabsaday in laloo soo gurmado kuwa shalay loo yimid looma file kuwa kale loogu soo daro ood adiga waxa meeshaan ka jira ogaato oo madaxweynaha hirshabeelle nimanka shalay kuu yimida hortaagane ka hor wareega aad tiraa oo doorashada beledweyne ayagaa hortaagane ka wareega aad tiraana waa kaa rabnaa dowladnimo ina ka wada shaqaynana waa layska rabaa haddii dowladnimo laga shaqay waayo waxa kaloo ku xiga waa taqaaniin waa dowlad la-aanna soomaaliya waa soo aragtay haddii dowladnimo laga shaqay waayo dowlad la-aan soomaaliya waa soo aragtay